madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu ka qayb galay shir saddex geesood ah oo ay yeesheen dowladaha Soomaaliya, Itoobiya iyo Talyaaniga. Shirkan ayaa waxa uu ku saabsanaa arrimo muhiim u ah saddexda dowladood oo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha, maalgashiga iyo arrimo kaleeto. madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in wax kasta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay xilligan ay ka shaqeynayso ay muhiimadda koowaad saarayso security-ga iyo si Soomaaliya xasiloon nabada loo gaari lahaa markaasna ganacsatada shisheeye iyo dowladaha kaleeta ee doonaya Soomaaliya inay maal gashadaan ay dowladda Soomaaliyeed iyo dowladahaasiba iskaashi muhiim ah ay yeelan doonaan. Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa dhankeeda waxa ay tilmaantay in Talyaanigu uu xiriir qoto dheer la lahaa dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya markana uu diyaar u yahay in maalgashi uu ku sameeyo wadamada bariga Afrika oo ay ugu horeeyaan Soomaaliya iyo Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhankiisa waxa uu dowladda Soomaaliya ku tilmaamay in ay iska kaashanayaan dhinacyada ammaanka waxaana Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ka codsaday in ay maalgashi ay ka faa'iideystaan Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku sameeyaan infrastructure-ka labada dowladood. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu la wadaagay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyo Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay ka gaartay dhanka amniga iyo dagaalka lagu jiro argagixisada. Shirkan saddex geesoodka ah ee dowladaha Soomaaliya, Talyaaniga iyo Itoobiya ay magaalada Addis Ababa ku yeesheen ayaa waxa uu ahaa shir miro dhal ah waxaana lagu ballamay in mar kaleeto la sii ambaqaado waxyaabaha laga wada hadlay heshiisyo hore dhacahna ay dowladahaasi ka yeeshaan arrimaha dhaqaalaha, ganacsiga, maalgashiga iyo amniga.